bismillaahi raxmaani raxiim caawa waxaan halkan ku wareysanaynaa cabdilaahi sheekh cali ayaanle oo degan magaalada Dallas Texas ee dalka Mareykanka halkaas oo ay ka soo kici timeen madaxda ururka tolka ee hadda boorama shirka ku haya cabdilaahi maadaama adigu aad degan tahay magaalada Dallas gudoomiyaha ururka ee hadda iyo dhalinyarta kale ee la socota ee xubnaha ururka ka ee shirka la wadina ay badankoodu ka yimaadeen magaalada Dallas maxaad ka ogtihiin ururka tolka iyo Dallas sidoo uga shaqeeyo bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulillahi rabbil caalamiin waa mahadsantahay waxa weeye waa run ururka tol ee maanta shirkiisu uga socdo magaalada boorama xubno ay ka mid yihiin gudoomiyaha ururka ee maanta iyo xubno kale guddida sare ku jira magaalada Dallas bay ka tageen runtii waa xaqiiqataasi laakiin barnaamijkan sida uu bilowday iyo sida uu socdo haba yaraatee waxa weeye mid aan anagu ka warhayn laano maxaa yeelay maadaama xubnahaasi ay magaaladaydi degan yihiin marnaba iskuma aanay xil qaadin ma ogtahay in dadka magaalada jooga ay wargeliyaan barnaamijkan ay ka dhaadhiciyaan ama ay haba yara ama ay kalaba tashadaanba marka mid iyaga u gaara oo u daxsoon oo u sir ah ayuun baanay ahayd tagitaankan imika ay boorama tageen shirkana ku qabteen oo saayadu baan anigu ka ogaaday waxa haba yarataan kala soconay ma ay jirin marka taasina iyadu waa mid maaragtay iyagu ay go-aankeeda iska lahaayeen laakiin barnaamijka guud ahaan sida aan ula soconay amaan website-yada ku arki jiray waxa hadafkiisu yahay moogta barnaamij tola oo dhaqankii beesha samaroone lahayd dib u sax lagu samaynayo oo laga bedelayo sifii uu soo shaqayn jiray soo jireenka ahaa oo la waafajinayo hab casri ah oo nimanka markaa imika ku jira guddidani iyagu ay ka injineer yihiin oo ay la imanayaan barnaamij cusub oo dadka doonayaan inay ka dhaadhiciyaan oo ay hab dhaqameedkii ay kaga bedelaan marka waxa weeye waa ayaan daro horta runtii in anagoo halkan magaalada la joogna bulsho ballaaranna ku ah oo tolkiya in haba yaraatee waxba naga dari waayo maaragtay nala socodsiin waayaan taasina runtii waxay noqonaysaa magaranaysaa mid iyagii maanta ay u lugoosan yihiin oo maaragtay aan ficiba lahayd haddii annaga wax nooga sheegi lahaayeen sababtoo maxaa yeelay haddii dhaweyta markii shirku bilowday uu ka bilowday hotel Rays magaalada boorama waxaan ila soo hadlay suldaankaygiiba ila soo hadlay oo markaa hudheelka fadhiyo oo kamid ahaa dadka salaadiintii la casuumay la marti qaaday meesha kasoo qayb galay shirkuna markaa maanu bilaaban markaa su-aal buu weydiiyey waxaan kula soo hadlay adeer waxa weeye niman qurbaha ka yimiday oo magaaladiina ana ay ka yimaadeen aad degan tahay ayaa barnaamij wada oo caawa halkan aanu shirka noogu qabanaya markaa maxaad ka waqtigeed kala socotaa su-aashaad weydiisin baanu weydiiyey maxaad waxaan ugu jawaabaan garan waayo sababta waxa weeye waxna laga socodsiiyay maanay jirin waxna kama naan ogeyn barnaamijku siduu socdo taasina runtii waxay noqonaysaa boogta mid iyagii khasaare ku keenaysa waayo dadkii qurbaha joogay haddii aad iyagiiba ka iibso ka dhaadhiciso waayo anagu tolka banaanka kama niino kama baxsanin tolka man ka mid nahay waxa tolka dan buu u yahay laleeyahay ma aha ka gudaha joogun buu anfacayaa kii banaanku isagu ka qabaya macnaheedu inay ahaato maanay ahayne waa arrin nimankaa hoos martay weeye dadkaa guddidaas markaa runtii jawaabtii markii aan bixiyey waxay ahayd oonu sheegay un maaragtay haba yaraatee waxaan ka ognahay inaanay jirin laakiin barnaamij iyagu ay wataan oo dee maaragtay la doonayo in dhaqanka wax lagu saxo waxna laga bedelo iyo waxyaabaadka kale ku darayaan dee markaa shirka ay keenayaan nolosha un mooyaane waxaan ka ognahay ma jirto ayay ahayd cabdilaahi bal intan faahfaahintan dambe haynoo dambayse marka hore jaaliyadiina reer Dallas ee qurbo jooga ee reer Awdal ma la oran karaa dad isku xidhan baa tihiin oo iska warhayo oo haddii ay qaarin ka mid wax ay wadaan de kuwa kale ay ogaan karaan oo wada tashi iyo ka dhaxeeyo runtii horta magaaladan anigu muddo badan baan joogay oo 7 sano waan deganahay intaana dadka tolka halkan jooga ee bulshadan way si fiican bay isugu xiran yihiin dadka wax kale irgeeyana ma jiraan wax dhex yaallo oo tafaraaruqina ma jiraan marka barnaamijkan tolka waa mid aan filaynay in maaragtay kolley at least maaragtay dadka in maaragtay lagu wargeliyo laba shir ay qabsadeen baa jirto dee maaragtay
midna 2010 waa midna 2011 mid ka dhacay gobolka Minnesota midna Canada ka dhacay marka wasaaradda lagu ilaamiyay marka qofkii tagay karayay uu tagay sababtoo yeeshay dadku ma wada haleelaan laakiin markii la soo laabtay in dadka kulay waxa ku fiicnaan lahayd moogta inta loo yeero in laga dhaadhiciyo barnaamijkii marka barnaamijkan hadday yagaysan yihiin maaragtay ay ahmiyad gaar ah hadday siinayaan oo ahayd inay ahmiyad siiyaan waxaa atleast looga fadhiyay ma garanaysaa bulshadii halkan joogtay iskuna duubneed dadka caadiga ahayd inay arrintii u bandhigaan oo yidhahdaan barnaamijkaasaan wadnaa dhulkeeniina waanu geynaynaa bal sidaa ula socda si aan u fahma ama maxay idinla tahay talaba la iska weydiiyo markasta daboolkumaaba arrintu xaajadu furkun baa lagu adkeeyey marka runaad raalliha cabdilaahi aadan kaa dhex galay waxaad ka dhawaajisay in ay ujeedada iminka ay u socdeen ama asalkii horeba loo aasaasay ay ahayd in dhaqanka siduu u shaqayn jiray iyo sidii loo kala dambeyn jiray iyo dadkii mudnaa ay wax ka bedelaan marka hadda hadda sidee baad u malaynaysaa waxa ay ku bedelayaan inuu muxuu noqon karaa ma ileen waddanka siyaasiyiin baa ka jira dawlad baa ka talisa iminka hadda oo isku magacowdan inay ka taliso madax dhaqameedyaa jira ugaasyaa jira sideeba waxa xisbi siyaasadeedna ma aha urur samafalna ma aha marka ururkan tolka doonaya in isku keeno wana kana bedelo systemkii hore lagu shaqaynayay sidee bay hadda markaa kuula muuqataa inay u samayn karaan horta waa run oo dhaqanka soo jiray waa mid soo fac weyn ma mid fac weyn oo soo qarniyo badan soo ood rogay ilaa 5 qarniyo ka badanba sanay u bedelayaan waxa weeyaan horta waa mid waxay taagayaan qabyaaladii waxay sheegeen qabyaaladu inay sideedaba dhibaato badan tahay udurna tahay waan daweynaynaa markaad qabyaalada leeyihiin oo siba waxaan u bedelaynaa yani qabiilku waa iska caadi waa fiican yahay beelaha iyo isqaraabaysiga iyo waxaas waa wax iska rabbaaniya oo dadku aan ka maarmayn sababtoo ah qabyaaladu dhibaato way leedahay taasina dadku way wada fahamsan inay geligeedu waa dhibaato ay leedahay marka taasi loo yareeyo marka iyagu ra'yi ahaan qabaan inkastoo ku qurxoon tahay iyaga laftooda inay faahfaahin ka bixiyaan waxay markaa doonayaan in sidii beelihii 3 beelood samaxoon u qaybsami jiray inay markaa u sameeyaan baarlamaan oo kale oo sidaan maqlay 60 20 iyo 20 saddexdii dhadhaar markaana guddoomiyana loo sameeyo marka waxa weeye beel walba la yiraahdo 20 kaagaad sidaad maaragtay isku soo maamulaysa soo habeynaysa soo dooranaysa ay ku taala hadawna guddoomiye laga dhex loo qabto loo dooro marka ay kaasina qofkaasina uu noqdo guddoomiyihii 60 ah ee baarlamaanka ku sameeyay marka dhaqankii soo jireenka ay ugaasku ku jira meesha uu ka baxaya sida iyagu damacsan yihiin ugaaskan horta ma ogolaba marka waa sababtoo maxay yeelay waxa weeye sidba kama aanay dhigan oo dadkii barnaamijkan abaabulay professorka Axmed Ismaaciil Tawatar taabkii maaragtay ugaaska uu macaamilooday ama waqtiyada dadkooda hadal la gasha afkiisa uga soo baxaan tilmaamaysay inaanu waxba u kala dhiganayn oo maaragtay hadaba yaraatay xumada aanay meesha kuma jirinba marka qaab kale wuxuu soo wadaan isaan ku maqlay waa sidaa weeye dadkiina basta horta mid qabso waxa weeyaan baashan qabyaalada la yiri horta hargab maaha oo hargabku waxa weeye dhowr maalmood qofku ku bogsadaa yani fuuti iyo rabta iyo farmasi ka tayaaba u ka baxa laakiin qabyaaladu ka qota dheerta waa cancer weeye waa lagu godgaa bahasha marka hadii ayagu leeyihiin baashi baan daweynaynaa Allah u saxro laakiin ma muuqato habkii lagu daweynayo waa hab marka oo dadkii in lagu tashwiish lagu dhaxo oo maaragtay waxaan looba fadhiin oo dadkii maaragtay anoo untamayn bal la dhexjeeyo la yiraahdo waan soo fikiray aqoonyahan keenay waan nahay muddaan ku qaadano waxaan gelinay hal baan moodno tanaan idin sidnaayo hooya oo naga guddoomo oo kale ayay u socotaa laakiin dhibaatada tan ay leedahay waxa farsamooyin badan oo nimanka qalqaldamada jira bilowgeeba waa mid hore waxa weeye marka tolka iskugu yeeraysa leedahay dadkaygii baan u raadinayaa maslaxo wax dhibaatooyinka dhex yaala ka furdaamiya wax markaa laga doonayo inaad dhexdhexaad noqoto oo noqoto mid xaq sooraya oo cadaalad ka shaqeynaya oo dhamaantood wada kormeynaya marka ururkan dhibaatadiisa u horeysay 2010kiiba siyaasaddu dhan ka galay marka siyaasadda sababta uu dhanka sifaha uu dhanka uga galay ayaan midna ku soo koobo waxa weeye waqtiga ay shirka ku qabsanayeen magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota
waxa soo dhaweey doorashadii waqtigii dambeysay xayaalana uma taqaanaa tii u dambeysay la garayay baa soo dhawaatay marka baa ka yimid xaggii dhowkii oo madaxweynaha ka yimid xayaala bilmasal la soo hadlay odayaal Minnesota joogay uu ku leeyahay waqti xasaasi ah lagu jiraa doorashooyin baa soo dhow waxaan maqlay abaabul caynkaasa oo ururka tallayra uu qabanayo dadka uu qabanayo waxaan dareensanahay ma ogtahay dadka abaabulaya ama hormoodka ka ah inay Soomaali weyn yihiin laakiin magac ahaan beesha ay ku magacaabayeen oo magacooda ku baxay marka maadaama dadku ay yihiin dad dareen nugul yaanay waxba dhibaato carqalad xagga doorashada ku keenide dib u xoogaha u dhigtaan oo waxay doonaan markaa qabsadaan oo siiba sida loo soo yahay beelaha dhaxo kale dadyo fara badan oo laga yaabo si cadaaladuna ama wax qabadka xukuumadda ay taageeraan ama dareenkooda u nacbaa heerkii madaxweynaha inoo ahaa soo kuwa shiraya goosanaya xagga ay Soomaali weyn u baxaya aqligal bayna iska ahay taasi marka odayaashii waaweyneed ee la soo hadlay madaxweynahaasi arrintii way u guuxeen waana u yeedheen professorkii barnaamijka waday waana u bandhigeen marka uu ka horkacay oo wuxuu siyaad barraba waan ka diiday waan iska wadanaynaa yeelin maayo odayaashii disappointment way ka xumaadeen way ka niyad xumaadeen runtii hataa in badan baa qaadacday inay ka qayb galaan marka kulankii ka dhacay Minnesota isla shirka dhexdiisina uu ka hadlay wuxuu yiri saas xagga laga soo yiro anna saasaan ugu jawaabay daw ku sii faanayba marka siyaasad xumaa meeshin ku jirtay arrinka runtii qayb waa sababtoo waxa weeye dad hal shirinayso isku yeerayso dawo ka shaqeynayso ummadda u wada dan ah in bad la faquuqa ma aha waayo laana maxaa yeelay ninkan madaxweynaha masar la hadlaya ama caynkan maaragtay uu xurmadaxada uu sameeyay odayaashan uu ka kacay dad badan oo taageersan ku xiran baa jiro markay hadalka maqlaan adigana waxaagii ka shaqeeyo ka diidiiday horta dhaawac weyn markii hore sax uu ka gaaray halkaas ay ahayd Cabdilaahi waxaan intayna kala goyn waxaad waday shirkii ka dhacay Ottawa ee uu ugaaska ku dhaleelay Professor Samater waxa weeye shirkaas runtii hadalkan maaragtay munaasabka ahayn ee ugaaskana loo qaadi waayay dadkii beesha fadhiyay in fara badan runtii ay ka caroodeen professorkiisa ka soo baxday hooyada ta boolajeena kama bixin la gelin haba yaraatee uu ka bixiyay ma jirin dadkii goobta fadhiyay dadyo gudida sare ku jira oo ka mid yahay chairman-ka maanta jooga ururka u talinaya ay yiraahdeen boolaje waxaan rabnaa maarka xaali gelin in ugaaska meel baa laga dhaala soo raali geliyo jawaabtay soo bixiyeen mid qalafsan bay ahayd oo oranaysa dadka ugaaska durbaanka u tumaya taageeraya la socda maalinta barnaamijka inuu taaba galo aanu dhibada u aasno maxkamadan soo joojin doonaa yani xasina dadkii dabay wada gaadhay runtii marka in badan in marka ay ka sii durugto ururkii oo ka biyo diido ayaa marka abuurmay marka waxa weeye soo ururintii tolka la soo ururinayay intaas oo dhan nimankan ay gobol xaarka u sameeyeen in ay qurbihiina maaragtay dhowr shir ku qabtaan hadhowna sidaa maanta ka boorama lagu qabto kale ay ciddigoodu ahaa maaragtay qasadkoodu ahaa maaragtay inay soo maaragtay isku soo diyaariyaan baa waxay abuureen in qurbihii dadka iyo fara badan markaa ay ka biyo diidaan inta gabiyo wuxuu yiri la yiraahdo dowladda gabayada weyn Soomaaliyeed baa wuxuu yiri geeli dudada jeeda ee dabadaha u yaa ninka soo dabaal yiri miyaa saama daba jiida waa yani geel diday oo dajabiyay oo ninkii golaha hurdeer ahaa markuu ka daba tagayay saantii baasaydu ku hurduulay lugta u marato day qabo wax la hoo maartay geeli inuu siiyo dudu hor socdo mooyaane soo dabaal leen male marka hadda doonaysa dadkii inaad soo maartay aba hadana dadkii u baaqayo waan soo u yeerayaa waan soo mataqaana keenaya oo waan ku wada keenayaa ayaa markastaba arrimo gafaho dabayaala markaa soo baxayo dhacayay marka dadyo fara badan markaa ku dhalisay maartay in ururkan dad uu socdo la fahmi waayo Cabdilaahi marka adigu waxa tahay in shaqaale ayaan le oo oday abaha magac ku lahaa dhaqankana uu aad u yaqaanay sheekh habar samaroon oo ahaa waxaan markaa ay nimankan wadaan ma kula tahay inuu wax suurtagal yahay hadayba daacad xitaa ay ka noqdaan oo dadkan ma la nidaamin karaayo sidan ay iyagu sheegayaan wax iyo wadciga Soomaaliya ka jira iyo sida maanta Soomaalidu u nooshahay hadii ay xitaa daacad ka ahaan laayeen ma kula tahay waxaanu inuu wax shaqeynaya yahay
دكتور فرنتي ما وين مايو واحد سمعكم مع بعض سمع كيف مع بعض ما دل نفلك يعني بلا واه هراء ربنا بدن باك قلدمay dad yo fara badanna way eegay tikrayeen yani way gaar bay maaragtay dareen gaaray ku abuureen oo fogeyn ah oo dhaweyn halkii ay dadku maaragtay heli lahaayeen fogeyntaasay maaragtay bilaabeen horta waqtigan ay la kowsadeen ururkan uu soo baxay waqti aad u qaban kari lahaa taani si fiican waxay iska jirtay oo dadkuna u baahnaayeen yani waxa weeyaan waa la wada xasuusta waqtigii doorashooyinkii dambeeyay sida dadku siyaasaddu ay u dhex gashay beela loo noqday loo maaragtay la isku maandaafsanaa iyo markan ka dambeysay waqtigii ugaasku dhulkii tagay haddii markaa ururkani maadaama uu ka kooban yahay beelo badan oo maaragtay ay isku yeelaan rafaa badan oo maaragtay muddo kari meesha ay ku jireen haddii ay ka fogaan lahaayeen ma ogtahay in ay maaragtay dhanqaadashada la safashada maaragtay ay dhanka taageerayaan oo nadiif ka ahaan lahaayeen oo dhexdhexaad ka ahaan lahaayeen niman credit leh oo aaminaad mudan oo in loo soo joogsado la dhageysto oo laga oo kuwan maskaxay wadaan oo waynamadeenii wax bartay banaanka joogay dhibaatooyinkan inay dhex yaalana iyaga ay nala furdaaminaya marka daanyay ka noqon lahaayeen yani dad bay ka noqon lahaayeen maanta arrimahana maaragtay dadku isku mari waayay waqtiga doorashada soo bilaabantay markii dambe ugaaskana si maaragtay si durugtay ilaa maantana loo maarsanay xal aan loo haynin door weyn bay ka ciyaari lahaayeen laakiin waxay noqdeen maaragtay niman ujeedooyin kale wata oo aan ama farsamadu ka xun tahay ama wadaqaba u sameynaya sidan marka su-aashan aan maaragtay inay wax ka soo baxaan ma u aragtaaba anigu horta runtii uma arko waayo horta aaminaadii baa xumaatayba ay waxaanay wadaan waa maxay baa la isweydiinaya marka aniga marka sudaanku ila soo hadlayay waxaanu nolosha nimankan kontrabaan bay wadaan arrimo buga ayay wadaan maadaama aan barnaanka anaga waxba looga sheegi waayo oo farsamadaaan ku tilmaamayeen inamadan ku dhaliilaya waxa raggan ku dhaliilaya gabdhaha baan ku dhaliilaya waxa weeye anagu qurbajoogii baan nahay anagu waxaan curadadii soo dhoofay baan nahay anagu waxaan nahay dad eliita dadkii maaragtay dadkii xaggaa jooga ay aaminayeen in la soo hadlayeen baan nahay marnaba wax xisaabta kuma ay darsan war markaa dhulkii tagtaana dadka shirka aad u qabanaysaan dadka dhulkan joogaa ninba ninkiisii buu la hadli doonay ku kalsoon yahay oranay war arrintan noo yar jilciyo nimankani maxay wadaan marka markii annaga ay gabaahirna fureen ay waxoo nagaga dari waayeen arrintii marka la soo weydiiyo inaanu idhaahno waxaan waxba kama fahamsanin waxa wax dhan socotay dhanka socotay ma garanayna laakiin intii aan dhagayna hadaan la dablayno saasaan u aragnay oo kale marka wax khasaare maanta kusoo baxaya iyagii runtii marka waqti sixitaankiina waa waqti aad maaragtay lasoo dhaafay anigu waxaan fili lahaa dadka inaan nimankan waqtiga ka qaadin inay barnaamijka bedelaan baan ugu jeclaan lahaa waxaanan jeclaan lahaa mataqaana inay noqdaan sida hay-adaha kale wax qabanaya waayo dadka halkan ka tagay dhulkii tagaa laba gaadiid midkoodun bay saaran yihiin waa nin faras ku tagay iyo nin dameer ku tagay ninka faras ku tagay faras cabfuushada dhulkii taga waa ninka wax qabanaya waa hay-adaha iyo gargaarka iyo meelaha la dhisay iyo iskuulada iyo waxa weeye ka dameer ku tagaana waxa weeyaan ka intuu dhulkii tago dadka dab ka qabadsiiya dadka isku dira madaxa isku dhufta ee waxaan jirin u sheega marka qoladan hadday warkooda caddeyn labada mid bay ku dhacayaan markaa ama waa inay gargaar meeshii la tagaan wax hagaagsan oo madii anfaca ama sida dadka isku diinuun inay noqdaan haddii afkooda la garan waayana labada neefkii udhexeeya bay noqonayaan baqal bay saaran yihiin marka uma malaynaya wax natiijada hagaagsan kasoo baxayaan ilaa ay sixi bilaabaan oo ay ummadana mataqaanaa xurmada iyo maamuusta ay u yeeshaan madaxdooda ay u yeeshaan dhaqankii lagu soo caanamaalay waayo xadiis nabiga wuxuu yidhahdaa caleyhi salaatu wasalaam lam yashkur innaasa lam yashkur illah nimaan ummadda u mahad celin ilaahay uma mahad cesho markuu profesorkaasi leeyahay anigu awowgey baan soo gaaray awowgiibuu soo gaaray haba yaraatee wax saameyna nolosha iyada ugaas kuma lahayn marka uu leeyahay waan eego aniga awowgey iyo awowgiisii kalaan eegay taariikhdana markaa waxay ku baagantay inuu noolaa qarnigii 18 bilowgiisii 1820 1830 1840 waqtigii ugaas roob leh ugaas nuuraabihi markuu noolaa waqtigaasina waxay ku dhadhaweeyeen waqtiyadii weyman dooran ninkii la oran jiray Richard Burton ee gaalkii dhulkeena soo maray dhul cusub oo ay galbursi u qabsadeen oo ay mataqaanaa dadyo ay ka kiciyeen oramadii iyo wixii oo waa dhulka dusha sare la degan yahay oogada sare buur madabarkeeda ayaan soo maray marka waxa weeye haddaynan ugaashadan haddaanay inda hor tirtirsanayn oo na beeshuna isku duubnayn oo nidaamkani aanu jirin halkan babaynaan joognana xeebtaynu soo dul fuushanaan lahayn maanta ninka aqoonta ah taa garan la ee ku gafaya
halku wax ku ogyahay halku wax ku arkaya aragtidaas aniga waa midaan cajab gelin marka arrintan asaaskeeda qallo waa seeska guriga sees buu ka dhismaa seeskaas hore haddii aan si fiican loo dhigin gurigaasi dumid unbaa u hantay aakhirka waa kii duma marka barnaamij shaqeynayna aan lahayn baan wada waqti lumis baanan u arkaa cabdilaahi aada iyo aad baad u mahadsan tahay way muuqataa inaad ka soo jeedo sheekh cali ayaanle aftahamadiina waad leedahay si fiicanna waad u dhigtay jazaak allah khayr aada iyo aad baad u mahadsantahay axmed